markii hore khalad waan geli jiray aabbaheena wuu i cafin jiray balse khaladkaa markii aan galay ilaa hadda aabbay cafis kama arka aniga waa khaladka koowaad oo aabbahay igu dharbaaxay gacantiisa markii aan rabay inaan shumeyna wuu iga diiday saaxib arrintaasa ka walwalina ku dha adiga maalmo badan waxaa sugaysa ayaa berita kuu taagan iraanna beri ayay ku imaanaysaa marka adiga waxaa lagaa rabaa farxad inaad muujiso saaxib maxaa kugu dhacay waa halka farxadoo hadda aniga aan haysto laakiin farxaddan aan haysto waxaa igala weyn qaladka aabbahay aan ka galay haddii aan u taga xataa si farxada uguma sheekayn kara soo maha saaxib hadda maxaa dhib oo koosta ii sheeg bal مسلسلكني وحو قال يهي مقدشو كيبل تي في waxaa daran qalad ah marka shan mar labaad inaad qalad kale sii gasho aabbahane haddii uu ogaado gabadha inaan la kulantani wuu ku farxi doonaa asigana wuu ku soo dhawo doonaa insha allah sida aad dhahda arrinta ilaahay ha ka dhigo macalin ma soo geli karnaa haa cusmaan wiilkayga soo gala alaabta waa keenteen soo maha halkaan iska dhiga carruuraya dhegaysta arrin muhiim ayaa idiin haayaa si deganaanaan rabaa inaad u dhegaysataan hadalkaygan aad si fiican u dhuuxdaan fadhiista ilaahow adaa mahadda leh soo ma aragtaan waa dhagax tan saa u jeeddaan waa bir kanna sidaad u jeeddaan waa dab haddaysan intaan ahayn mid idinka mida maanta meeshaan ma joogi lahayn waaba yaabanahe sidee hadda bal fiiriya dhagax sida u gubtay oona u burburaya hadda waa adegyah dabka markii la qabadsiiyey sida u burbur waad aragteena u malaynaa asigoo dhanna waa burbure dhagxaanta markay dhalaaleen kadibna birtan ayaa ka dhalata meesha ugu dambayna birta aad arkaysaan seeftan awoodda badan la ayaa laga sameeyey macalin annaga kuguma imaan seefta sida loo sameeya inaadna barta ee wax kuugu nimid taariikhda ehelkeenna inaad nooga sheekayso wiilkayga cismaan degdega dhaaf sabarkana badi sheekadu waa kuu soo wadaa ee ha hordhicin adiga isdeji ani meeshaan saynis inaan bartaa u imaada kana seeb lagu waylas nooga sheekayno ilaaw adaa noo maq wax walba oo adduunyada korkeeda yaalin faa'iido ayay leeyihiin dhibka jira waxa waaye faa'iidadaas sidii lagu ogaalaya ayaa adag tamaam cusmaan su-aashuuna weydii ayaa hadda ka jawaabaynaa biri hore qorraxda meesha ay ka soo baxdo ilaa ay meesha ee u dhacdo annaga ayaa ka tali jirin xilligaas cid kale laguma haysanna maamulkaas dadkana wakhtigaas dhammaantood nolol farxadla ayay wada haysteen adduunka afartiisa dhinac oo dhan maamulkeena ayaa ka shaqaynayay weliba si cadaaladda ku jirto cadaaladdaasna tuugsi laguma keenine seef ayaa lagu keenay maamulkaas annaga aan maamulaynay dunidoo dhanoo ku baahay nabad iyo barwaaqana waa la helay dadkina waa ku intifaaceen sidaas ee taana cadow naga soo horjeeda waa lahayn iyo mucaaradba kadibna waxay bilaabeen qorshiya annaga maamulkeenna ay ku burburin lahaayeen
cadowga annaga naga soo horjeeda waa isbahaysteen hal dhinacna way ka soo wada horjeesteen waxayna rabeen sida annaga inoo burburiyaan haddii annaga dad midaysan aan ahaan lahayn cadowgaasna ma naga guulaysan lahayn haddana sidaasoo kale waa inaan u midownaa cadowgeenna aan iska dhicinaa cadowgaaga markuu qorshe kugu dhigaayane shayddaanka ayaa u sheegaya dulduleelada adiga aad leedahay iyo meesha daciifka ah ka taa lagaa soo geli karo maahmaahaya turki ayaa waxay ahayd biyuhu way seexdaan laakiin cadowga ma seexdo awood markaa yeelanna waa iskala dhiganne inaan is ilaalinna meesha looga baahnaane raaxa ayaa iska galne waxaan hilmaamnay xukunka inuu ilaahay noo fududay ilaahay baan ku caasina jabna wuu nagu dhacay